mararka qaar hal fikrad ayaa bedeli karto gebi ahaan noloshaada. Ku soo dhawow taxanaha Faynuusta, halkaasi oo aan ku shidi doonno iftiin yar oo kaa caawinayo fahamka naftaada, noloshaada iyo qalbigaaga. Qayb walba waxay xambaarsan tahay fariin kooban oo kuu noqon karta hagahaaga maalinlaha ah. Haddii aad raadinayso deganaan, faham iyo isbedel dhab ah, meesha saxda ah ayaad joogtaa. Ma tahay qof mar walbo haa dhaho, xitaa haddii uu daalan yahay, qofka dadka oo dhan qanciyo, ka shaqeeyo horumarkooda, farxadooda, laakiin nafsadiisa hilmaamo, dareemaya markuu keligiis noqdo daal badan iyo xanaaq badan. Taasi waxaa loo yaqaanaa qofka dadka qanciyo. Bulshadeena dhexdeeda ama bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dumarkeena waxaa lagu amaanaa inay yihiin dumar karti badan, nafurid badan, dhexda u xirto. Waxaa loo yaqaanaa qancinta dadka kale aa qancinaysid mar walbo aad u istaagsan tahay ama nafsadaada aad dadka kale mar walba ka hormarisid ammaan. Laakiin qancinta dadka amaba dad qancinta waa marka qofka uu si joogto ah dadka kale uga hormariyo baahiyihiisa, dareenkiisa iyo caafimaadka maskaxdiisa. Waxaa loo yaqaanaa marka dad qancinta rabitaanka xad dhaafka ah uu qofka dadka kale uu ku raadinayo mar walbo in ay ogolaanshiyo siiyaan, jecel siiyaan amaba uusan ku weynin dadkaasi. Waxay noqon kartaa oo kale qancinta qancinaysid qofka lamaanaha kule ah, asxaabtaada, caruurtaada, deriska, dadka kugu hareereysan oo dhan ma kala qaadeeno. Qofka people pleaser loo yaqaano ama dadka qanciyo wuxuu ka baqaa mar walbo diidmo, maya ma dhihi karo, dadka kale ayuu ka hormariyaa nafsadiisa, wuxuu dareemaa dambi hadduu nafsadiisa uu doorto. Waxaa jiro marka calaamado lagu garto dadka kala qanciyo. Calaamadahan haddii aad isku aragtid waxaa ka mid tahay dadka u baahan inay isbedel ka sameeyaan dabeecadan. Waxay dhib ku qabaan horta dadkaasi inay maya dhahaan, xitaa haddaysan awood u lahayn way isku qasbaan waxaas inay sameeyaan si dadkaas kale ay ugu fuliyaan baahiyahooda. Waxay ka baqayaan dadka kale inay ka xumaadaan, mar walba dadka kale in ay ilaaliyaan ay had iyo jeer juhdi ku bixiyaan amaba aysan ka xumaanin, ka xanaaqin, ka fogaanin, aysan luminin ay juhdi badan ku bixiyaan. Mar walbo waxay nafsadooda ka hormariyaan dadkaasi, danahooda, himaladooda iyo hadafyadoodii oo dhan meelay ku xireen. Waa dad mar walba u taagan dadka ku hareereysan in ay ayaga wax u qabtaan, ayaga horumarkooda nafsad ahaaneed, maskax ahaaneed, jir ahaaneed inay kala shaqeeyaan. Laakiin markay ayaga nafsadooda imaato waa dad hilmaamay. Waxay qarsadaan dadkaasi dareenkooda. Aad ayay u qariyaan dareenkooda, ay laqaan, ay xirtaan. Waxay dareemaan daal badan, xanaaq badan oo gudaha ah. Ra'yigooda markay timaado amaba aragtiyahooda ama waxa ayaga ay rabaan waxay ku xiraan dadka kale ra'yigooda. Hadday wax qabanayaan dadka kale ra'yigooda ayay wax ku qabtaan amaba ku sugaan. Haddii dadka kale ku dhaliilaan waxay u arkaan waxay qabteen waxaan qiimo lahayn. Haddii lagu amaano waxay u arkaan wax qiimo leh. Ra'yigooda si weyn ayuu mar walbo ra'yiga dadka kale ayaa mar walbo baawar fiican ku leh noloshooda. Waxay isku dayaan mar walbo farxadda qofka kale ama dadka ku hareereysan. Okay, maxay tahay marka sababta ama waxyaabaha keenaya qofka inuu noqdo qof dadka kala qanciyo? Marka aad ogaatid sababaha ama root cause-ka way kuu fududaanaysaa in aad dabeecadaasi ama dhaqankaasi iska joojisid. Qodobka koowaad waxaa waaye qofka oo ka cabsado diidmo. Wuxuu u arkaa qof hadduu ra'yigiisa ka soo horjeesto ama uu diido wax dhibaato ah. Qofka marka wuxuu ka baqayaa in laga tago, in laga xumaaday, in laga xanaaqay iyo in aan la jeclaan waayo. Marka wuxuu rabaa mar walbo positive inuu dadku ku haayo. Midda labaad waxaa waaye qaabka anagana loo soo barbaariyey. Caruurta Soomaaliyeed badankood waxaa lagu soo barbaariyey aamus, dadka kale ha ka xanaajinin, ceeb waayo waxaas, ha dhihin, ha yeelin, adiga u sameey.
badanaana caruurta oo maaragtay curadka ah ku badan. Walaalkaa kaa yar waaye, adiga curadaa tahay, adaa guriga ugu weyn, adaa saan adigaa lagaa rabaa aamus. Yani curadka marka laga soo tago oo kale qaabka caruurteena inaa lagu soo koriyo inaysan fikirkooda si ixtiraam leh aysan u dhiibanin, mar walbana ay dadka kale ee ka dambeeyaan ama waalidka ha noqdo ama yani qaab tarbiyeentaasi oo kale. qodobkeena saddexaad waxaa waaye kalsoonida qofka oo aad u hooseyso. qofka wuxuu ku qiimeeyaa nafsadiisa, qiimaheeda, ra'yiga dadka kale. haddii ay dadka kale u arkaan qof fiican, inuu isku arko qof fiican. kalsoonidaada hadday dhaawacan tahay, mar walba waxaa ka baqaysaa dadka inay ku diidaan, ogolaanshahooda ayaa raadinaysaa. laakiin markaa kalsoonidaada dhistid, ra'yiga dadka waxaa u aragtaa wax positive ah. haddii ay ogolaadaan iyo haddiisan ogolaan, mar walbo adiga kalsoonidaada way dhisan tahay. saameyntaasi marka saddexdaas ayaa ugu badan waxyaabaha keenaya. sababaha way badnaan karaan, laakiin saddexdaasaasoo kusoo koobay. saameynta marka ay leedahay dad qancinta maxay tahay, ama qofka people pleaserka saameynta noloshiisa ku lahaanayso. qofkaasi mar walba wuxuu dareemayaa daal maskax ahaaneed, qof maskaxiyan u daalan waaye. xiriirkiisa marka waa qof asiga mar walbo wax bixiya ah, wax qaata aanan ahayn, oo asiga mar walba juhdi u bixiyaa. marka xiriir aan dheeli tirnayn oo daal badan ayaa meeshaas kasoo baxaayo. xanaaq qarsoon ayuu qofkaasi lahaan doonaa, sababtoo filashadiisa mar walbo ma gaari doono. wuxuu lumin doonaa shaqsiyadiisa, qofnimo ahaaneed, iyo rabitaankiisa, hadafyadiisa nololeed. niyad jab ayuu la kulmaa, sababtoo marmarka qaar waxaa dhaceyso dadka aasaan wax walba ugu horeysid, wax ugu sameyneysid, waay ayaga saan kuula dhaqmeen, waay ay kaaga fogaadeen, waay maxaa la dhahay saan habdhaqankan uga imaaday. qodobka ugu dambeeya saameynta waxay tahay dadka people pleaserka aad ayaa looga faa'iidaystaa. waa dad mar walba laga faa'iidaysto, lagu gaaro danaha shaqsiyadeed qof kasta uu markaasi ka rabo. taasina hadhow waxay ku noqonaysaa dhabarjab. sidee marka looga baxaa dad qancinta? qofku waa in uu number 1 barto inuu maya dhihi karo si ixtiraam leh. maya ma aadi karo, ma samayn kari, ma awoodi hadda, waxaan u baahanahay nasiino, waqti ayaan qaadanayaa, waa mashquulsanahay. in aad dhihi kartid maya, because sababtoo adiga bini'aadanaa tahay, way xadidan tahay waxaa samayn kartid iyo waxaadan samayn kartid. matid mashiinka xitaa wuu daalaa. taas waa qodob. waa inaad baratid maya inaad dhihi kartid. number 2 waxaa waaye inaad naftaada qiimaheeda aad baratid, oo sidoo kalena aa ogaatid qiimaha naftaada inaysan ku xirnayn dadka inay ku jeclaadaan, inay ku nacaan, inay ku ammaanaan iyo inaysan ku ammaanin intaba. qof walbana yani hadduu raali kaa noqdo inaad qiimo leedahay, hadduusan kaa noqoninne inaadan qiimo lahayn. aa ogaatid mar walba inaad tahay qof qiimo badan markuu ilaahay ku abuuray, oo aa dhalatayba qiimahaasi aad la dhalatay. qiimahaaga shaqsiyad ahaaneedna aysan ku xirnayn dadka kale iyo feedbackooda iyo faaladooda iyo go'aamadooda. xalqad dhan oo waxaa jirto aan oga hadlay qiimaha nafta iyo sida loo dhiso 3 xalqadood oo kala duwan. fadlan dib u soo baar haddii aad rabtid oo aad xiiseynaysid ciwaankaas. sidoo kale 3 waxaa noo ah xuduud inaad samaysatid. qof walba waqtigaaga inuusan lahayn, tamartaada inuusan lahayn, helitaan joogto ah aadan lahayn, oo macnaha wax walboo noloshaada ah aad ka samaysatid xuduud. 7 xuduud ayaa jirto. sidoo kale waxaa jirto xalqadii ka horeysay inaan kasoo hadalnay xuduuda caafimaadka leh iyo sida loo dhiso. dib ayadana ugu laabo. qodobkeena 4aad waxaa waaye inaad dareenkaaga sheegtid, inaadan qarsanin xanaaqaaga, murugadaada, daalkaaga. dareenkaaga inaad ka hadashidna ma ahan daciifnimo, waa awood kale oo adiga gaar kuu ah. inaad fahamtid xiliyada aad daalan tahay, murugaysan tahay, xiliyada enerjiga iyo farxadda aa haysid aa kala baratid. sidoo kalena dareemahaaga aa ka hadli kartid. qodobka 5aad waxay tahay inaa aqbashid dadka qaar inay ku xumeyn karaan, inaa aqbashid in lagaa tagi karo, filashadaadana ay noqoto mid caafimaad qabto, oo aadan filanin
wax macquul aan ahayn filashadaada inay xad iyo xuduud ee ku leedahay markaa isbedeshid waxaa ogaataa dad badan ayaa maxaa la dhahay markii hore oo people pleaser ama dad qanciya ahayd oo wax walba aad fulin jirtay kaa faa'iidaysan jiray waxay u dhaqmi doonaan inay kula yaabaan laakiin naftaada inaa ilaalisid mar walba ma aha inaa dembi aad gashay laakiin waa in aad ixtiraam iyo qadarin iyo jaceylba aad u haysid inaa nafsadaada ilaalisid ugu dambeyn inaad qof wanaagsan aad tahay macnaheeda ma aha inaa naftaada dayacdid inaa hilmaantid inaad iska indhatirtid amaba in aad dadka kala qancisid qofka maskaxiyan caafimaadka qabana wuxuu yaqaanaa goorta uu dadka kala caawinayo iyo goorta uu nafsadiisa dooranayo haddii aad mar walbo tahay qofka dadka kale ka hormariya nafsadiisa waxaa ogaataa maalin ayaad isweydiin doontaa aaway dadkii aan nafsadeeda waqtigeyga caafimaadkeyga iyo wax walba aan u huray oo aan ka hormariyey halkee aadeen yaa ii haray aniga marka inta aysan arintaasi kugu dhicin oo uu wiishka kugu yeerin waxaa barataa sida aad u xakameyn lahayd u horumarin lahayd baahiyahaaga dadka kalena aad u ixtiraami lahayd nafsadaadana aad u qancin lahayd qancinta dadka kalena aad ugu sameyn lahayd xad iyo xuduud macquul ah waa ku mahadsan tahay dhegeysigaaga wacan waxaan rajeynayaa insha allah inaad videogaaneta wax badan ka faa'iidid la wadaag asxaabta aad jeceshahay nagala qayb qaado faafinta wanaaga sidoo kale mar kale aan ku mahadcelinaa mahadsanid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu